السلام عليكم. سألتين سنود ما familka inta badan oo narcissiska waxaa jira waxa la dhahaa the golden child iyo the scapegoat ama the black sheep. So marka familka oo narcissiska inta badan waxay sameeyaan waalidka narcissiska ah wuxuu sameynayaa ama waalidiinta narcissiska ah waxay sameynayaan system u dejinaa familkaas. waxaa la sameynayaa golden child cunug dahabi ah ama cunug aan waxba haleynin wax ka qaldan malaha. cunugaas waa cunug aqli badan, waa cunug xariif ah, waa cunug reer magaala, waa cunug waxay u sameynayaan cunuga sumcad iyo sharaf iyo karaamo uusan lahayn. dadkay ka dhisaan qofkay arkaan u faanana ay u sheegaan cunug marka wuxuu aamin run u maleynaya marka haddii kalsoonida la dhiso beenba ahaatee lagu sheeg maalin inaad tahay qof fiican dee wixii runa moodaysa waa aaminaysaa. cunug marka way kolkoolinayaan, waxay siinayaan galgacayl fara badan iyo attention fara badan iyo naxariis fara badan. khalad walba uu galo faraha laga qaado laalma hadlay waa la sabay si fiican loola hadlay aabbo hooyo saan maano in waxaa moodaaba cunuga ayaga uu sir ka hayo markaas u fiirisa. kaas waxaa la the golden child. okay waxaa kaloo jira marka cunug kale ama cunug kale oo asagana la dhahaa the scapegoat ama the black sheep. cunug kale asagana ah scapegoat ama black sheep waxaan ka wadaa lixda madow. tusaale ahaan wixii guriga ka dhaca cunugaas ka mas-uul ah. hadduu xataa uusan joogin gurigaas wixii ka dhaca asaga mas-uuliyadda qaaday. inta badan cunugaasna waa curudka reerka. dhib ku jira waxaa weeye cunuga inta badan laga dhiganaya target oo laga dhigaya the black sheep ama the scapegoat laga dhigaya waa curudka reerka. inta badan majority si u badan tahay haddii jira marka cuniga ah the scapegoat ama the black sheep inta badan waa cunug aada u xoogan. they are very strong mentally iyo physically iyo emotionally. inta badan waa ciyaal ayakoo yarba ilaahay siiyey kalsooni iyo codkarnimo iyo xoog furnaan iyo magaratay iyo inay magaratay yihiin dad furfuran. marka waalidka narcissiska ama waalidinta narcissiska waxay arkaan cunugan inaan la controli karin asagoo yar hadde iyo ilaahay wuxuu siiyey codkarnimo uu magaratay xaqiisa ku dhacsada inuu hadla wixii qaldan guriga ka qaldan uu dhahay hebel aqaldan farta ku fiiq uu dhahay hebel aqaldan. marka waalidka narcissiska waxay si ay marka ay u ilaaliyaan this perfect image ay dhiseen yani sawirkan quruxda badan ay dadka ka gadeen oo ay naftooda ugu sheekayaan beentii qiyaaliga oo ay magaratay yani waxay sawirkan quruxda badan ay dhisteen si ay u ilaaliyaan oo ay u difaacaan waa in waxaa wax allaale iyo qof walba oo isku dayo inuu fashiliyo ay ka hortagaan. the golden childkan cuniga dahabiga ah oo ay bumbuuniyaan waa mid inta badan daciif ah maskiin ah waalidka ka raadiyay jacayl iyo ogolaasho iyo aqbalaad approval iyo validation ayay ka raadiyaan waalidiinta. marka waa puppet kaas inta badan waa eyl toobaran wax allaala waxay dhahaan sameeyo loo duru qabanaya ma aha inay jacayl ka ahta inuu jacaylka yani maaha inuu yahay baari maaha ama inuu jacayl u qabo waalidiinta kamaha wuxuu ku raadiyaa sumcad iyo sharaf iyo in la ammaan. sababtoo ah maxaa ugu dhahay waa they are very insecure, they are weak. inta badan waa caruur daciif ah oo inta badan dadka faraha ilaahay ma simin been aan soo sheegna maaha. dadka waa kala karti badan yihiin. qof baa ilaahay siiyey karti, qof baa ilaahay siiyey aqli iyo aqoon, qof baa ilaahay siiyey qurux, qof baa ilaahay siiyey itaal, qof baa ma garanaysaa. marka dadkan caruurtan golden childka oo ay buunbuuniyaan waa caruur aan kalsooni fara badan lahayn. waa caruur inta badan waalidiinta narcissiska ama toxiga sunta ka raadiyo ogolaada iyo aqbalaad iyo magaratay iyo ammaan in la ammaano. marka waxaa weeye kan way controlaan gacantay ku haayaan wax dhib maaha. taasaa keenaysa marka inay bumbuuniyaan cirka ay geeyaan. laakiin the scapegoat child cunigan magaratay wax walba lagu nabo oo wax walba dusha laga saaro ama cunigan laxda madow the black sheep laxda madow waa cunug karti badan, waa cunug xoog furfuran, waa cunug magaratay ee kalsooni ilaahay siiyey iyo magaratay codkarnimo. haddii marka laga xaqa daran yaho arka waalid ama laal ama cidoodan ha ahaado yani waa qof inta badan isdifaac. qofkan golden childka waa qof iska maskiin oo inta badan xataa waa loo hadlaa inta badan waa la difaaca waalidka difaaca u hadla
sababtoo ah yani karti ay ku hadlaan xataa malaha ama xaqooda ay ku dhacsadaan. marka cunigan golden the scapegoat childka waalidka markuu qalday marka runtuu u sheega kama ah inuu caasib yahay kama ah, laakiinse wixii markaa jiro ka hadla ogaaya caruurnimada meesha way joogtaa. asaga marka wuxuu moodayaa haddii uu dhahaa waxaan qaldan ama hebela qaldan ama inuu hooyay qaldan ama aabaa qaldan ama waxaan saan ahaata ma ahayn, wuxuu marka moodayaa haddii uu farta ku fiiqo dhibka meesha ka taagan in waxaa la xalin doono oo cidda qaldana la dhihi doono waad qaldanta ka lex walaalkaa waad qaldanta ka lex. saasuu moodaa caruurnimada meesha way jirta. فعقرتما وما فهمسنا يعني system كأنه system toxic system يعني dysfunction أو أنا شقينين وأنا system أي دجيان والد كأم والدين النارسيس كأ سأي ومعمولان وكنترولان مقرت قوس كان. فعقرتما مرق عنق the black sheep عنق اللحم مذو وحول بكرك لقصار وحول بالغنبة. they are very empathetic person people وعدد آد ونحرز بدن وعدد آد ومقرتي وكرت بدن وعدد آد يعني very understanding يعني نمرك دقيس دبكو هاستو دبك هذا دقيستو دكتو دي كوسيا. وحكتنا عد والبو رفاسن أما دبعت سنة اسكود دي إنه يساعدان وعدد يعني ديروني كلسوني يعني إنه إله كلسوني وبروحي ما أرتي كل شيء. وحكتنا ومباهنا أمان يفهان يمقرتي إن لبونبوني وحمر كده وقو قبنا waxay u qabtaan yani for the sake of yani inay waxa qabtaan kama ahan magac sumcadku maraadiyaan they do because ay ka rabaan sameeyaan haday ku dhahan waxaan ku qabanaya khalaas waa cambuul arab saaran loo noqon cambuul arab saaran waa in la laqada u dhamaana noqosho ma laha laakiin ku maraadiyaan sumcadii amaan soo waxa kartama marka cunigan laxda madow the black sheep am cunigan wax walba lagu naba أنت بدل ما عنق لكنترول كرمه وح ما مقلة they have a strong personality وحيلين شخصية حوجة وحيلين strong identity الشخصي يعني وحبي وإس أوجيهن وحأيهن قفك أيهن وحي ربان وأوجيهن وحي ربين وأوجيهن مركو والدك أنت بدل نارسيسكا ما كنترول كر عنقان سيدو مركو حسكت ضيع إنه عنقان كلا بونبوني أمانو فاني the golden child عنقان ذهبيجا أو لوجودها كان أنت بمدد وعرضها على أنت بدن وحي مرك هذا عايش شيء سيدا واحد عاني شيء وحكم مدرة وإحنا كمجرى مرك وحال لوجودنا عيا أو لوجود بسنة والدك نارسيس كم والدك توكسيك أم والدين نارسيس توكسيك وصنتا وحي كل بسنة عنقان لحد مدو أو لقد جتوك عن بارله وحابي حقيقته كهلا رنتو الشيء بين قيال ومشاكل. عقرتما they speak the truth they speak their mind يعني حق wax markay hadlayaan hadal kamid doobeen ma qurxiyaan sida wax u jeedaan u sheegaan. عقرتما marka dadkan narcissistka waa dad يعني very insecure they have like fragile ego يعني waxay leeyihiin qab aad u weyn laakiinse wuxuu ku dhisan yahay ama ku salaysay aysan jirin. عقرتما haddii marka cunugu runtu u sheego dhaasaan wax u jiraan ayaga waxay u qaadanayaan marka inuu cuniga ayaga ataagareenahay sababtoo ah kebi may wana ogaataa dadka narcissistka waxay xirtaan mask qofka wajiga ay ku tusayaan ma aha wajigooda dhabta ma waa mask ay xiran yihiin dadka waxay ka gadaan inay yihiin dad aqli badan aqoon badan dad xoogan waxa gartama marka waxay sameynayaan wax walba yani ay ku kacayso inay magartay ay difaacaan waxaas ay dadka ka gadaan ama waxaas ay beetis qiyaaliga naftooda ay ka gadaan ama dadka kale ay ka gadaan marka isdhihi maayo marka cunigan inuu saan dhaha maxaa ka keenaya sababtoo ah they have fragile ego waxay leeyihiin qab aad u weyn laakiinse wuxuu ku dhisan yahay aysan jirin haddaad kalsooni leedahay oo uu ilaahay kalsooni ku siiyey maxaa weeye kalsoonida inta badan fiiriya kalsoonida waa wax u baahan in la dhiso waxa inta badan lagu dhasho maaha way jiraan ilaahay u dhalay laakiin inta badan kalsoonida waxay ka imaadaa yani su'aalaan haddii aad dhahdo maanta waxaana sameynaa oo wixii aad ka hirgeliso samayso oo waxaana sameynaa haddana wixii aad samayso waxa weeye haddii aad tahay qof qool leh oo yani ka dhabeeyo oo ka hirgeliyo hadafyaashiisa iyo goolasha uu nolosha ka leeyahay naturally kalsooni ayaad lahaanaysaa sababtoo ah waxaa tahay qof inta badan ka dhabeeyo
wuxuu dhahaa waan sameynaya qof hirgeliya hadafyaashiisa iyo qorshayaasha nolosha ka leeyahay marka that gives you confidence naturally yani no so waxa kartama ayaga marka kalsooni waxay dadka ka gadaan been iyo qiyaali ah laakiinse wax ay ku salaysanta ama ay ku dhisanta aysan jirin marka cuniga markuu xanaaqo dha waxaan taban dhibkaana jiro waxay u qaadaan marka cuniga ayaga weerarahay difaac galaan marka ayaga waalid ah ay difaac galayaan cuniga waxay ku sameeyaan marka gaslighting inay xaqiraan xaqiiqadiisa iyo wax uu dareemay ay ka soo qaadaan wax saan u sii weynaan da cuniga is overreacting inuu yani iska waalay laakiin dhibsa u sii weyn aysan ahaynba waxa kartama kan marka saan u sheego hore the golden child waa sida uu sheegay waa ay tabartaan waa ay yani waa masaakiin asagan waa dhiban wuxuu ku dhiban yahay waxa weeye yani meeshaan waxay yani halkaan ay geeyeen marka he has to live up to their magaratay waxa weeye waa in meeshaan la saaray uu ka soo dhaco hoos ugu soo dhacay sababtoo hoos ugu soo dhaca he is disappointing them ayaka ayuu niyad jibinaya asagana dhib bay ku tahay inuu meeshaan taagnaa sababtoo ah meeshaan joogisteedu waxay u baahan tahay karti iyo calool adeeg iyo magaratay iyo magaranaysa yani xaniyo tabarteedana ma hayaan laakiinse shaati ka weyn aysan qaadi karina loo xiray naftirkooda way dhiban yihiin laakiin waxay meesha u joogaan si ay waalidkiinta ama hooyo aabba ama waalidka ama qofka marka mas-uulka ah oo narcissistic toxiga sunta ah si ay u farxad geliyaan shaatiga ka weyn ay loo xiray waa inay xirnaadaan ayakaa dhiban naftirkooda laakiinse waxa ayaga kaga fiican yihiin laxda madow midkaan cunigan kale la dulmaya oo wax walba dulka laga saarayo waxyaalo badan yani loo qalaya hadday waxalayaan hadday soo dahaan hadda xilliga doona baxan xilliga doona imaadaan repetition waxay la siiyey ee ay wataan yani magacii sumcad aynan yani shaqaysanin oona tabar iyo awood u lahayn ayaa loo sameeyey waxaa u sameeyana dadka narcissistic toxiga sababtaa waxaa qofkan the golden child is feeding this narcissistic is ego wuxuu quudinayaa qofkan toxiga sunta narcissiska ah qabkooda beenta ah so marka meesha wuxuu u joogaa waxaa weeye si uu u quudiyo qofkan narcissiska toxiga ah waalidka walaalka wuxuu doona ahdo ayaga mas-uulka ka ah marka meesha waxa loo geeyay ma ahan in la jecelay ma aha laakiin waa tuubo wey waxay tuubo yihiin inay quudiyaan kalsoonida qofkan narcissistic toxiga waalidka wuxuu doonaa waxa kartama haddii marka waxaas laga filanaya iyo magaras filashada intaas la-eg qoorta loo saaray ayna oofinin oo ayna fulinin waxaa lagu sameynayaa yani emotional yani punishment yani inqaab shucuur ahaan ayaa loo inqaabaya ogolaasho lama siinay aqbalaad lama siinay amaan lama siinay attentionka laga goosanaya waxa kartama sida waxaa loola dhaqmaya inayna jirin waa la idolgaranaya and this kills the golden childkana way dhibtaa oo way dhibaysaa midaan sababtoo ah golden childka cuniga dahabiga ma ahan cunig kalsooni fara badan leh they don't have a strong identity shakhsiyad xoogan ma laha qofkay yihiin isma ogaan waxa kartama waxaabay way dhiban yihiin waxay dulmano yihiin waalidkan ama qofkan narcissiska ah oo u geliya shaatigan ka weyn waxa kartama marka waxay sameynayaan marka meeshii ay joogeen meel ka dar inay tagaan howsha ay qaban jireen laba jibaarkooda inay qabtaan si ay u farxad geliyaan qofka narcissiska toxiga sunta waalidka walaalka wuxuu doona ahad ayaga mas-uulka ka ah waxa kartama marka caan waxaan u isticmaalnaa waalidka narcissiska ama waalidinta narcissiska okay waxaan kusoo noqonaa marka the scapegoat ama the black sheep laxda madow guriga wixii ka dhaca farta ayaga madax laga saaraya sababtoo ah haddii la dhaha hal la xisaabtamo oo lis hor fadhiisto waxaa soo baxaysa dhibkaana dhanba inayba caruurta ahaynaba yihiin dadkan narcissiska ah ama waalidiinta narcissiska ama waalidka narcissiska ayaa dhibkaana dhan magaratay gadaal ka taagan hase ahaata si taa aynu u dhicin waa in ayaga ay iska leexiyaan accountability yani waa in ayaga iska leexiyaan iftiinka oo ay helaan qof ay ku nabaan dhibkan si ayaga aan loola xisaabtan waxay kaloo sameynaya marka labada walaalaha golden childka cunigan dahabiga oo ay cirka geeyeen bunbuuniyeen iyo cunigan dhibanoo magaratay wax walba madax laga saaro inay ka dhex abuuraan tartan iyo ficil tusaale ahaan
cunigan cunig laxda madow the black sheep iyo golden child oo sol taagan the golden child oo cunigan dahabiga ayaga hor jooga ayaa waxaa la faaninaya cunigan dahabiga la faaninaya waxaa la rabaa in lagu qabjibiyo cunigan kale sababta cunig wax maqla maaha waa cunig aan inta badan la control karin waa cunig leh shakhsiyad xoogan waa cunig runta ka hadla xaqiiqada markaa taagan ka hadla soo waxa garta ma waxay kala dilaan labada curur si aynan u heshiinin oo aynan ugu hadlin xaqiiqada meesha taagan iyo dhibta meesha ka taagan taasoo ah in waalidiinta ama waxaa dadka mas'uulka ayaga ah ay yihiin dad toxic suna si marka ay keen u heshiinin waa in dhaxdooda lagu abuuraa tartan iyo xin iyo magarta si ay u heshiinin ayaga waxay kala sameeyaan cunigan laxda madow waxaa lagu qasbiyaa inuu u noqdo waalid carruurta kale oo ka yar sababta dadkan waa narcissiska ma ahan dad mas'uuliyad qaad marka mas'uuliyadooda waxay saarayaan curudka reerka ayay ku qasbayaan inuu carruurta kale u noqdo waalid inta badan haddaad weydiisid laxda madow the black sheep carruurtan dhibanaha u ah ama carruurtan dhibka la saara maxay ahayd yaraantaada waxay ku leeyihiin yaraanteeda ma waxba kama xasuusto inta badan waxaa ayagoo yara waxay noqdeen dad waaweyn sababta mas'uuliyad ayna qaadi karin qorta dusha laga saar maba xasuustaan childhood sababta meesha ciyaalnimo ay baashaan lahayn ciyaalnimo ay soo mar lahayn ciyaalnimadooda waxay ku qaateen ayagoo dad waaweyn ah waxay korinayaan carruurta ka yar sababta waalidkii narcissiska ah ayaa howshiisa gabay howshiisa wuxuu korka ka saaray curudka reerkii soo u koray carruurta kale waxayna marka la waalid ah ayagoo carruur ah iyo waalid waxay u ahayn carruurta ka sii yar maanta hadda inta soo gaartay waa maasantiin fadlan subscribe saar like dhax comment ka bixi shar garay waxaana balanaha video kale hadii dadka waxaabadii ay ku qabsatay qisadan ama aad ahayd the golden child ama aad ahayd laxda madow fadlan commentiga noogu soo sheeg khayr insha Allah. Assalaamu calaykum. Bye bye.